muuqaalkan wuxuu sheegi doonaa saameyn nooc ah ka dhalatay sharciga la yiraahdo Genius ee uu saxiixay madaxweyne Trump. Sharcigan wuxuu ku qotomay in la nidaamiyo waxa loo yaqaano stablecoin ama lacagaha aan isbedelin ee suuqa crypto. Ujeedka sharcigani waxa uu yahay in la nidaamiyo lana xakameeyo lacagaha stablecoins-ka ah ee digitalka ah kuwaas oo ku xiran dollarka Mareykanka. waxa uu horseeday sharcigani qorar weyn oo ku yimid suuqyada crypto. Bitcoin waxay soo taabatay abid qiimihii ugu sareeyay, Ethereum wax ka badan 20% ee sare u kacday iyadoo gaartay heerka wax ku dhow $4,000. dhacdadan sidoo kale waxa ay keentay in suuqyada stablecoins-ka ah ee sida gaarka ah uu u taabanayo sharcigan ay kordhaan mugoodu ayna gaaraan wax ka badan 250 milyan. sharcigan sidoo kale waxa uu horseeday in shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay Google, Uber iyo Apple ay isticmaalaan stablecoins-ka ay ka mid yihiin USDC iyo USDT si ay macaamiishooda ugu fududeeyaan inay lacagaha kula baxaan. ugu dambeyntii sharcigan waxa uu abuuray doodo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale. Siyaasiyiin iyo dadka faallooda arrimaha dhaqaaluhu waxay aaminsan yihiin in sharcigan uu saameyn doono gaar ahaan Trump ay gadaal ka riixayaan dad raba inay ka faa'iideystaan sharciga la yiraahdo Genius Act ee uu saxiixay madaxweyne Trump toddobaadkii aynu soo dhaafnay. haddaba ka dhiibo aragtidaada iyo sida u aragtay sharcigan qaybta faallada mar walbana la soco oo my